Soomaaliya iyada ma tagay Soomaaliya Soomaaliya waxa iigu dambeysay 2017 marka waxaad ka tirsanayd aqalka wakiilada ee gobolka Minnesota laakiin intii Congress-ka aad gashay ma tagay Soomaaliya ما تجين ها ولي فرصة ما نروح maxaad tagay ولي فرصة ما نروح لين وان رجينا يا إن مرضو إن أنا أروح إلى xaaladda Soomaaliya dabcan aad baad ula socotaa maxay kula tahay Soomaaliya هذا أنا مركز تو قفل دورته وحن ده رجع في عنا إلى ضحي إن وحن هاي هاد قف يضو نجير كسر تكتي ودنكي و ودعي Soomaaliya إلهي كانوا رجيني سو إن ولا لهاد أو دبنا صدق كان صنو إن أي هلان فرصتي أنا قلنا عن وده حلني ودن كسر تري مركا إن وحكس عن كنت ذلك كرنو وعن وقبان كرنو الصومالي وعن كل جين وأنا كنت دارنا وحن أمالينا الصومالي ده إني وبديهين دد حنشاق يفهمان شاق وإنا نقولنا دد حق شاق iyo maxaa la dhahaa ii sheeg wanaag sheeg dad ahayna noqon fariintaad arrimaha Soomaaliya ka gaarsiiso ama Congress-ka Mareykanka ha noqoto aad ka mid tahay ama dawladda lafteeda ha noqoto ama qaybaha kale ee dawladda Mareykanka maxay tahay Soomaaliya waa wadan haddii fursad uu helo noqon karo wadamada adduunyada ugu fiican fariintayda waa in dadka Soomaaliya ay gacanta isqabsadaan indhaha ay furtaan dhagahana ay xirtaan horay ay u socdaan walaaltinimo la'aan wax u suurtagelaysa male Soomaaliya haddii ay iyaga is aaminin inaan isku tashanina wax u suurtagalaya ma aha dadkeenan kaleeta haddee oo awoodda leh cod kala duwan leh oo diasporada ku nool in aan xumaanta Soomaaliya aanan ka shaqeynin dadka aanan kala qaybinin oo aanan noqono dad hadee wanaageedii raadiyo Soomaaliya waxaan u maleynayaa badanaa qof sharciga haayo ama wakiil ah inaan qofkaas aamino oo aan ilowno wadankii iyo dadkii ku noolaa iyo xaqii ay nagu lahaayeen marka inaan noqono dad wadanka u daneeyo aanan u danaynin qofkii oo markaasaytii madaxweyne ah ama xildhibaan ah ama wasiir ah xildhibaan Ilhaan dhawaan madaxweyne Biden madaxweynaha Mareykanku wuxuu amar ku bixiyay 700 askari loo diro dalka Soomaaliya ciidamadii joogayna madaxweynihii hore Trump ayaa ka soo saaray faragelinta Mareykanka ee Soomaaliya سيد وأركتام بكفر أحسن تين عيدا مدي مريك كل عبنا يا صومالي waxaan u maleynayaa hadda markii uu Trump ka soo kaxeeyay ciidamadii Soomaaliya joogay in dadkii wadanka mas'uulka ahaa ay dareemeen taakuleyntii ay ka helayeen ciidamadaasiiti in ay ka baabaaday saad u ogtahay dawladda Soomaaliya dawlad kasto haysan markaasaytii xukunta xilli dagaalka al-shabaab marka waxaan u maleynayaa in dawladda hadda ay rabto taakuleyntaasiiti inta lacag ay ku qaadanayso taakuleynta haddii Kenya ay ka imaanayso oo Soomaaliya dhexdeeda aynan ka imaanaynin America wax dhib ay ku ahayd marka go'aanka waxaan u maleynayaa inuu yahay go'aan iska fudud oo dadka siday ay u fasiranayaan aanan loo fasiran